السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد برنامج كيني حاسوس قرد أختر يدين قرطو يدين ديارسو دكتور باق بوبال أي كسو ديارسو مقالة هركيسا كلمدها أفكينا كسو بحيسا أن سف عن وفكرنا وأن دورنا سببت وحويان قلوبتا يعقلقا أي كونو لاتا ووليجيد مدمتو كلمدها قاركود وسيدا ورنكا انتي أفكينا كسو بحدو أيا وحبي داوعدا أما وحبي دشا ama nabaray ka tagtaa weligood ana bogsanaynin laga yaabo dadku inay kugu dhibaan hadalkooda bil arxanka ee cadownimo iyo xaasidnimo ay ku jirto laga yaabo inay kugu dhaawacaan indhahooda ama sidii ku eegayaan ama comment-ka ka bixinayaan marmar qaarkood waxaad maqlaysaa iyaga ku caayo oo ka hadlaaya oo isku dayaya inay qiimaaga hoos u dajiyaan ama inay ku yasaan marmar qaarkoodna waxaad dareentay inaad daciif tahay oo iskama difaaci kartid ama carabkaagu inuu xidhan yahay oo xaqaaga ma qaadan kartid sababtu waxa weeyaan way ka awood sareeyaan ama way ka bawar weyn yihiin ama way ka lacag badan yihiin ama way ka buruud weyn yihiin markaasaad marmar qaarkood aad wadamqanaya aad dareemaysa inaan cidina maqlayn ashtakadaada ama qalbigaaga waxa ka guuxaya ama damqashada dareemaysid laakiin niyadda daji ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku arkaya waanu ku maqlayaa waanu ogay xaalkaaga kaligiiba ku hiilin kara ku ilaalin kara xaqaagana ku qaadi kara qiimahaagana kor u qaadi kara maanta waxaan idin hayaa sheeko kamid ah sheekooyinka aan nolosheeda maqlay ee aad iga yaabiyey ee itusay siduu ilaahay naxariistiisu ay u ballaaran tahay siduu uu subxaanahu wa tacaala inuugu dhow yahay quluubteedana uu u maydhi karo uu xanuun kasta uga maydhi karo uga tartira karo dhibaato kasta iyo siduu ilaahay quluubta jabta uu u kabi karo siduu ilaahay qiimaheena kor ugu qaadi karo uu inoogu hiilin karo waxaan sheekada sadanatilkacba sadanatilkacba waa maxay weligiin ma maqasheen wax la yidhaaho saadinilkacba saadinku waxa weeyaan qofka ka mas-uula daryeelka iyo nadaafadda kacbadda guriga ilaahay ama guriga nolosha ama adduunka ugu qaalisan kacbadda ilaahay qofka ka mas-uula furaheeda furo dahab ka samaysan isaga haysanaya gurigiisu yaala isaga ka mas-uula inuu furo oo dadka soo booqanayo inuu u furo hadhowtan inuu xidho isaga ka mas-uula nadaafadeeda inuu zamzam ku maydho iyo in la cadareeyo oo uunsina lagu shido isaga berigoore ka mas-uul ahaan jiray intaana dowladdu la wareegin marada ama kaswadda kacbadda inuu bedelo ama inuu hagaajiyo ama inuu talo qofkaas ka mas-uulka ah ee sharafta loo dhiibay waxa weeyaan reer la yidhaaho al-shayba waxay ku nool yihiin dalka sacuudiga carabiga furahana iyaga ka mas-uula xukuumadna kama qaadi karto boqorna kama qaadi karo furaha kacbadda oo reerkaasun baa haya reerkaas sharaftaas ilaahay wuxuu siiyey من فوق 7 سماوات أيو شرفتها سيي قرآننا والغو سو دجيي حقو دو إلالينايا إلى يوم القيامة حديثنا نبي عليه الصلاة والسلام وكشاق حقا ريركاس أي ليهين طلوا محي سبب تاس شرفتا وين ريركا لو سيي يكو أنا ملائك أهين أنبياءنا أهين بقرنا أنا أهين ودد عادية شكد وحكي بلا منيسا لحية طبان قرن كهر وليبا إسلامك وكهر ريسا شكده waxay ka bilaabanaysaa nin la yiraahdo Qusay bin Kilab waxa weeyaan awowga shanaad nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ninkaas wuxuu lahaa 4 namood waxa la yiraahdaa Abduddar ya Abdul Uzza ya Abdu Manaf ya Abdu Qusay bin Kilab wuxuu ahaan jiray xaakimka Makka waqtigaas qabla al-Islaam inamadiisaas waxay u dhoofi jireen safarka ganacsiga ama tijaaradda ay bixi jireen waqtiga qabowga iyo waqtiga kulaylaha ama samarka ilaahayna quraanka uu ku sheegay safarka ganacsiga ay u dhoofi jireen reer Quraysh ama inamadiisu oo wuxuu yiri ilaahay bismillaahir rahmaanir rahiim liilaafi Quraysh ilaafihim rihlat ash-shitaa'i was-sayf sadaqa Allahu al-'azim laakiin Qusay bin Kilab inamadiisaas inanka ugu weyn oo la yiraahdo Abduddar umu dhoofi jirin safarka ganacsiga ama tijaaradda oo magaaladu ayuu joogi jiray sababtu waxa weeyaan asbaab ku xiran caafimaadkiisa iyo awoodiisa
wuxuu ahaa qof awooddarra oo ahayso oo daciifa oo dhoofkuna uu ku adkaa manuu dhoofi kari jirin marka magaaladunbuu iska joogi jiray. taas baa sabab noqotay inuu noqdo qof la yaso ama aana magac lahayn, magaciisa aana dadku aana magac haynin ama aana laga hadlin oo miskiina. waxaana u noqotay sabab walaalin markaas ayna ku caayaan taas ay idhaahaan qof baa tahay aana awood lahayn oo daciifa oo aana safar dhoofi karin ama tijaarad samayn karin ama wax soo kordhin karin nolosha. maalin maalmaha ka mid uu aabihii aad u cadhooday markuu arkay walaalihii sida walaalkooda weyn u xaqirayaan. markaasuu dhaarto u idhi waa inaan sharaf dheeraad oo aan iyagu haysanin waa inaan ku siiyo. wuxuu sameeyey furihii kacbadda uu aabihii uu hayn jiray ayuu gacanta ka saaray inankiisa cabdidaar suu sharaf uu siiyo magaciisa kor u qaado maadaama uu yahay qof miskiino oo la yasaayo. furaha kacbaddana qofka haya waqtigaa wuxuu ahaan jiray qofka ugu sharafta weyn maka ama ugu magaca weyn ayaa furaha loo dhiibi jiray oo ka mas-uul noqon jiray. laakiin ma rumaysanaysaan furihii loo dhiibay cabdidaar ilaa iminka duriyadiisii wuxuu sii dhalay ayaa haya furahaas oo reerkiisa ama ubadkiisii furahaasu ilaa iminka kamuu bixin. maalintii fatxi maka ayaa nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam kacbaddii buu galay. markaasaa furihii wuxuu ka qaaday nin la yidhaaho cuthmaan bin abi talxa, waxa weeyaanna wuxuu sii dhalay cabdidaar weeyaan. markuu furihii ka qaaday hadhowtana nebi moxamed sallallahu calayhi wasalam uu galay kacbaddii ayuu hadhowtana cali bin abi taalib buu ku yidhi orodoo igu yeer cuthmaan bin abi talxa. markuu imidba wuxuu ku idhi furii buu gacanta ka saaray wuxuu ku idhi صلى الله عليه وسلم خذوها يا بني طلحة بأمانة الله سبحانه وتعالى واعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. إلهينا سبحانه وتعالى سورة النساء أيو كسودة شي آيات حقودة وحافظة يريركاس. إلهي قرآن كوحوري بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم. نبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي طلحة وحكوري إني لم أدفعهما إليكم ولكن الله دفعها إليكم. فرها أنوق إذا من سيننا إلهي بيدن سيي. عثمان بن أبي طلحة بفريب وقاطي إسجان هيي هدوتنا markuu dhimanay ubad muu lahayn waxba muu dhalin duriyad kamuu tagan marka wuxuu u dhiibay inaadeerkiisa shaybana dee waxa weeyaan ubadkii ama duriyadii cabdidaar ba isaguna ka mid yahay. ilaa waqtigan aan joognana aal shayba ayaa sidii furihii gacanta ku haya markasta kareerka ugu weyn ayaa furaha loo dhiibaa. waqti ka mida waqtiyadii hore ayaa nin xukumi jiray maka ayaa waxaa lagu idhi furaha maad ka qaadid aal shayba oo adigu maad haysatid oo kacbadda adigu mas-uulad ka noqotid. wuxuu ku idhi haddaa idinku kulligiin ugu tidhaahaan daalin baan ahay dinka malihi, laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu igu idhaho daalin baan ahay taa uma adkaysan karo mana xamili karo. yacni wuxuu ku leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waakii xadiis ku sheegay oo idhi qofka furahana idinka qaataa waa daalin, marka daanu furaha ma qaadi karo haddaan ka qaado daalin baan noqonaya siduu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay. haddaba gabagabada waxaan idin odhan lahaa hadduu ilaahay cabdidaar oo aana maalin ilaahay u sujuudin fooda dhulka dhigan uu ilaahay uu sharaftaa uu siiyey oo qalbigiisii la jabiyey uu kabay isaga iyo duriyadiisu dhalay sharaftaas ay u soconayso ilaa yowmi alqiyaama oo furihii kacbadda uu u dhiibay isagii ubadkiisa oo sharaftaasna ay hayn jireen nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyaga uu sharaftaa uu siiyey. haddaba ka waran adigoo 5 jeer fooda dhulka dhiga oo ilaahay u sujuuda oo qamcaha kor u qaada oo idhaaha yaa rab sida baanu ilaahay qalbigaaga aanu u kabaynin, xanuunka aanu kaaga biinayn, farxad aanu noloshaada ku soo kordhinayn, qiimahaaga aanu kor u qaadaynin. an yaqiin yeelanno oon mar kasta xasuusanno inuu ilaahay mar kasta ina barbar taagan yahay oo isaga keligii subxaanahu watacaala uu awood u leeyahay inuu nolosheenna u bedelo. waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.